maanta waa jimce waa maalin cibaado ah oo maalin nasasho bay hayd hase yeeshee shaqada qaran awgeed ee aan bulshada u hayna awgeed ayaan maanta shaqaynaynaa cagaftan waxaan ka soo kaxeeyay kala baydh tiyo cagafyada halkaa ciidda kaawada ka soo rarayso iskuulooyinka halkaa ka raraysa ayaan halkaa ka soo karaystay dabadeed si aan ugu banneeyo godka oo xidhmay oo iskuulooyinkii ay u suuroobi weyday inay galaan oo gudaha soo dhigaan qashinka oo soo buuxsamay insha Allah ta'ala ilaahay wuu noo dhib yareeyay way noo fududaatay 2 saacadood iyo bar buu ku jiray waa ka gabagabeeyay waa hawsha halkaas baan ka wadaynaa bulshada ganacsatada magaalada iyo xaafadaha waxaan leenahay qashinka sidii ballankeenu ahaa nin waliba markuu iska ururiyo ha xidho koo xidhanna shaqaalaha dawladda hoose ha qaado ha u fududaato qorshaha ballankeenu saas waa idinkana waa xidhista annana waa qaadista waxa kale oo halkan uga faa'iideysanaynaa waxa jira dameeroolayaal imiga halkan aan oo taagan ku rogi albaabku dhiga waxa leenahay qolada dameeraha ee qashinka xaafadaha ka soo qaada sida nidaamka iska rogooyinku u dhigaan qashinka ay gudaha u geeyaan ay u gubaan ha u dhigaan hawna gubaan haddii ay sidaa yeeli waayaan waxaan ka mamnuuci doonaa inay dhigaan cirka ha geeyaan waayo waxa weeyaan khasaaraha iyo dhibaatada inagu hayaan bishiiba mar halkaanu ka laabi jireen cagafta kaga laabi jiray ma bishiiba 15 cishay maraysa inaan cagaf geliyo taasina waa qashinka batay awgeed iyo basar xumada ay nagu hayaan qolada dameeruhu marka Ramadaan Kariim insha Allah ta'ala hawsha waa la bilaabaynaa barbarkay ka baxdaa waa bakay la galeen ciidanka Soomaaliland guul baan leh